oo hooskiisa ka cararahaya oo hadka roor ah oo xaaskiisa carruurtii aabbo ku haya ka ordahaya tayib lama baahno qixi Soomaaliya ee 91kii marka la isbaabiinay ilma yaro yaalay buu dacay mid uu qaado oo markuu cararahay barkinta uu la kacay marka ilaa dhoobley barkin buu watay xamar ilaa dhoobley barkin buu la ordahay dhoobley markuu soo gaaray barku wuxuu watay barkin culusta dadka noocaas waxa loo dhiibay maayaad tayib dadka noocaas waxa loo dhiibay maayo waaga hadda Yaman aan joogay baa qoliyo tahriib Soomaaliya soo tahriib nin walba waxa la ninna walaashi baa la socotay ninna xaaskiisa baa la socday saxaraha Yaman markay soo galeen ayaa Mooryaan baa heshay Soomaalidu waa baylaha waa qoys jabay qaran baabay weey meel kasta marka waa lagu cunaa midaas uu markii intii isweer laga qabtay loola baxay qori iyo baangada iyo baasha gol xabki loola baxay jambiyadii iyo cagaha wax ka day baxsay xaaskiisa buu ka carar Mooryaantii Yamaneed baa gabadhii la hadhay ilaa aminka iyagu haystay ugu dambeysay wax ka hadleen uusan jirin oo la ogyahay waliba waaqacay ta macruuf oo ma ka qabatan qabiiliyiin bal niman laan dheeraa oo dawladdu wax kama qaban karto ninkii kale wuxuu yiri inaan idishaan bay gabadha marmaysaa soo ugu dagaalamahay iyo laba nin uu dilay asagii gabadhina way baxsadeen asoo meed noola ah iyo ku soo dhacay mujammac meesha loo dhan jiray yimid 12 nin buu la dagaalamay nin iska qaxayo qaxooto naf aan haynin buu ah laakiin ku naf baxay raganimada asalka ah shajaacatul qalb gabadha laftirkeeda markay aad walaalkeedu sidii bahal ku dagaalamay ayna way dagaalantay baxsadadu way badbaadeen qoliyo kale alla ku bixiyo asagoo markii intuu soo baxay qoliyo loo doonto intii kale intuu jilciyay kala carareen baa nin kale soo qabto soo qaado oday kale ilaahay ku badbaadiyay laakiin ragga 12 ka meel buu saaray miduu sidii bahalka u qaniino miduu sankaba goosto miduu dhagta la kaco waxa meesha ka dhacday laga sheekay wadiyaabis nin bahal u ah qoriga xabad baa lagu dhuftay nin buu iskaga dhigay inta madaxa la tagtay kii iskaga dhigay asagii ilaahay baa badbaadiyay xabadii dambe uu ka gaaray qoriga buu la qabsaday kala carar laba nin qoriga lafta ninka dambe iyo nin suxu u dhaawacay qoriga buu ku garacay qoriga xabad la'aana buu madaxa kaga garacay ku jajabiyay eber nin noocaas u ah waxa loo jeedaa hawshu markay hawl dagaal tahay nin dhiiran oo qalbi adag bal raba wadniisu fadhiyo nin xoogo yar markay digaag muxuu ahay dhawaaqdo ama kabaray duusho wadnuhu ruuxan hayo ama ninka si raaqalaaf nin raaqalaaf waxa la yiraahdaa shabeella baa la yiri waliga ma naxbay waliga ma naxinbo adoo aroor xabiirka u kala haya la yimeysan kabaray ka hoos doon waliga taas ma naxdin baa waa nafaqad weeye taas naxdin mee waa nafaqad buu hawsha ayada ah waa in ya يعني حلك أن دونينا أن أحد كأودي من النؤجينا إلى شجاعة القلب وحيك الله وإلى الخبرة بالحروب دجال يقان نكو إنه يه أقون ديرادة وإنه يدجال الله واللي هذا حمر جوجا حبض ضيضة صعتيس كشغل زنايا حبض هو صعوته أميد كل جورها يو داوع على كل قاضي هاي بيدكام أفريقي باش تيترى حكم الدعين عرك إسكاد باش روح يكون طالع ويقول لي خبير خبر يكون نقدين maxay labaatan sano iga dul caysa xabad way barteen ninkii waqooyi ka yimaada ama Soomaali galbeed ka yimaada ama meelaha kale ka yimaada xamar ma ku yimaado weysada ka jamar marka horeysa nafta qaban qadada u dhadhamay mayso quraan ma hayo wadnaha cadaanaya ila baashi bugta iskaga haysa